waddanka Suudaan wax ka bartaan arday badan oo Soomaaliyeed ayaa wax uu ka mid yahay wadamada dhaqankeenu sida xoogan uga jiro maadaama ardayda Soomaaliyeed ay wax ka barataa ay yihiin kuwa dhaqankooda ku adag. Ardayda Soomaaliyeed wax ka barata kulliyadda Imaaraad ee dalka Suudaan ayaa iyagu soo qaban qaabiyay bandhig dhaqameed sare loogu qaadayo dhaqankeena soo jireenka ee ummadda Soomaaliyeed ka oo la oran karo inuu yahay mid mudan sare u qaadid. Ka soo qaybgalayaashii bandhig dhaqameedka ayaa aad uga helay ciyaaraha hidaha iyo dhaqankeena iyagoo ku tilmaamay dhaqankeena Soomaaliyeed mid aad loo jeclaysto shucuurtoodana laga dheehan karay inay xiiseynayaan in wax badan bartaan. qaar kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan ku nool oo iyagu cabiraya shucuurtooda ku aadan sida ay u arkeen bandhig dhaqameedkii lagu soo bandhigay kulliyadda Imaaraad ayaa cabiraya kooda magacaygu ah Maxamed Aadan kuna magac Arafat ana ku hadlaya magaca raabidada ardayda kulliyadda Imaaraad waxaan ahaantii soo qaban qaabinay barnaamij sport dhaqameed oo aan ku soo bandhigay dhaqanka Soomaaliyeed. barnaamijkaas oo ahaantii laga galay juhdi aad u fara badan waxaan ka shaqeynay muddo isbuuc oo aan markaas raadinaynay sidii aan ku soo bandhigay dhaqanka Soomaaliyeed. dadaalo fara badan oo sameynay kadib waxaa inoo suurtagelay inaan dhaqanka Soomaaliyeed aan muujino. hadafkeeduna wuxuu ahaa in dhaqanka Soomaaliyeed la barto. الرحمن الرحيم magacay waa Cabdirasaaq Maxamed Al-Xajiri waliya golaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Suudaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta barnaamijkan aad qiim u ah ka soo qayb galay oo ay soo agaasimeen jamciyadda ama raabidada kulliyadda Imaaraad. maanta wuxuu ahaa barnaamij aad u faa'iido waxay soo bandhigeen dhaqanka ummadda Soomaaliyeed kaasoo ahaa barnaamij yacni ku dayasho mudan. magacay waa Muqtaan Waaswi kana mid ah Soomaaliyeed wax ka barta Suudaan ee Khartoum. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo bandhigno hidahayaga dhaqankiyaga haddii ahaan lahayd dhaqankeena dhanka guurka hadduu ahaan lahaa cuntooyinkeena inaan kusoo bandhigno dowladda jaarkeena. waxaan u mahadcelinayaa ra'iiska raabidada kulliyadda Imaaraad walaalkayaga Arafat. sidoo kale waxaan u hambaliyaynayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ee nagala qayb galay sida quruxda badan dhaqankeena usoo bandhigno aad u mahadsantiin. أنا وأمير محمد أحمد كنت كلية الإمارات للعلوم والتكنولوجيا مجال قرطوم دولة السودان كلية الهندسة سنة مصلحة وحنا هذه أول فرح سنة برنامج الثقافي الصومالية كلية الإمارات قمتي وحنا مسؤول بين الأمان وحركة دولة السودان ملاحظة هذه أيضا فرح سنة برنامج كون وحنا كقدم وياها برنامج ذي دخل كهي ومتقنا برنامج فريد كي قبجرين أنت بدنا طلالك وحنا كل اسم حنا كنت لديه كراكانت قضايا قلنا baad loo jecel yahay wax badan laga faa'iido xilliyada lagu soo bandhigayo dalka Suudaan. Maxamed Ciise Koona, Somali TV, Khartoum, Suudaan.